Qof kasta oo guulaystay ama koonkan caanka ah waa qof taariikhdiisa nololeed ay tahay mid silic iyo gaajo weheliso. Taas micnaheeda ayaa ah in qofka haddii uu ku nool yahay nolol adag uu u dulqaato, waayo nolosha inteedii wacnayd way u hadhay. Qofka inuu rajo iyo hami yeesho waa lagama maarmaan, waayo haddii aad ku noolaato nolol bilaa ahdaaf ah ama aad ka fikirto xaggee wax ka cuntaa, xaggee seexataa, waxa aad la mid noqon doontaa xayawaanka iyo xoolaha. Balse waa inaad fahantaa nolosha si aad u noqoto guulaystaha ugu wacan. Fahanka nolosha uma baahna wax qarash ah, balse kaliya waxay u baahan tahay inaad la shawrto naftaada oo aad qaadato go'aan kuu suurtagelinaya riyooyinkaaga iyo hamiyada aad nolosha ka leedahay. Kulligeen waxaan leenahay socodkeena nolosha, waxaan haysan karnaa dad nala socda. Badanaa dadku marka aysan awoodin inay gaaraan yoolkooda, waxa ay raadsadaan cudurdaar ama waxay eedeeyaan kuwa kale. Dib u dhac waa safarka noloshaada, waana inaad ku socotaa si kasta uu u dhib badan yahay. Dadku way ku tusi karaan jihada, laakiin waa inaad adigu xaaladda la kulantaa. Kaalmee dadka, laakiin ha ka dhigin mas'uul. Markaad dhacdo waa ay ku caawin karaan, wayna ku istaajin karaan, laakiin waa inaad naftaada u lugayso. Falsafadda quraanjada ka fiirso sida ay nolosha u fahansan tahay. Weligeed ma ay quusan markaad wax u dhigto jidkooda ama meeshii ay marayeen, iyagoo ku wareejin doona ama ka gudbi doona. Ma joogsan doonaan ilaa ay ka guulaystaan. Quraanjadu waxay u diyaar garowdaa jiilaalka xagaaga. Dadka waaweyn badankoodu waxay isku diyaariyaan xilliga qaboobaha. Ha u malaynin sida haddii aad tahay xilliga qaboobaha, waa inaad u diyaar garowdaa guga. Dhammaanteen waxa aynu haysanaa waqti aan wax walba ku samayn karno ama aan dayici karno. Daqiiqadaha niyad jabka marka ay waxun isbedelaan, jacaylkaaga aad weydo, shaqadii lagaa eriyo, ama aad lumiso lacag, waxaas oo dhan waa casharo, waana kuwa joogtaa. Laakiin waa sida aad u aragto adigu. Ma u ogoshahay inay burburiyaan hadafkaaga? Ma u ogoshahay inay ku bedelaan? Dhammaanteen waynu soo aragnay kuwo ka mid ah dhacdooyinka, ama haddii aynan soo arkin waa kuwo inagu soo wajahan. Labaduba waad awoodaa inaad burburiso ama aad dhisto naftaada. Adiga ayaa ogolaan kara inay duruufuhu kula hadhaan. Adiga ayaa go'aansan kara oo dhihi kara, ma doonayo inaan joogo booskan. Waan ka weynaaday, waan ka xoog badanahay. Sida aad u malaynayso in aan ahay, wax kasta oo aad igu soo tuurto oo dhib ii geysanaya laga yaabaa inay hoos ii dhigaan, laakiin iima diidi karaan inaan kor u soo kaco. Waan ka awood badin doonaa. Waa inay jiraan wax diiradda kuu saaran iyo wax aad ku qanacsan tahay oo aad naftaada ka iibisay. Mar kasta oo noloshu kugu adkaato, waa inaad yeelataa adkaysi aad kaga gudbi karto dhibaatadaas, waayo qofka noloshu way u horeysaa ama way u dambaysaa. Laga yaabaa inaad ku nooshahay nolol aad u qurux badan oo dadka kale qaarkood aanay haysan. Laga yaabaa inaad ku nooshahay nolol adag oo ah mana quraacan qadana ma hayo. Dhammaan nololahaas oo dhan waxaa lagaa doonayaa inaad si fiican uga gudubto. Haddii aad ku dheeldheesho barwaaqada iyo caafimaadka Eebbe kugu manaystay, ogow inaadan ku sii waarayn. Sidoo kale haddii aad u adkaysan weydo nolosha adag oo aad ku dhacdo dembiyo iyo gafaf, ogow in aad ka qoomamayn doonto. Noloshu way iska xaalado badan tahay. Mar kasta waa in aynu si qurux badan uga gudubnaa si aynu u noqono kuwo guulaystay if iyo aakhiraba.